haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back. haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto, share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato, like gumaha lacaga noo saar. Please subscribe, like and share. Thanks. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام السومالي محمد ملك استوديو دونك كجوكتين وولاشين أبح ورسمائي مركلة إيطالة ثلاثة أسبوعا وحان كسو قادنايا أرين آد إيغاغا يابسي أو إنت بدن مركان اسويديو آنس إراغدا طلو داد كانو غورما أي أرينتان كبحي دونان هوشان غورما أيانو كتلاسوني دونا أرينتاسي وحي تهي أرينتا يانا نالعيبين ama qoyska yaan la ceebeen ama familka yaan la ceebeen ama waxaan hadaan sheegno waa ceeboobeena. And in English they were shaming, like don't shame our family. What is don't shame our family means? horta marka hore as weydiino maxay tahay macnaha waxaan familku ceebeynaya. horta ma kala naqaana wax ceebta ah, waxa xumaanta ah, waxa beenta ah, waxa khayrka noogu jirin iyo waxa kale marka ugu horeysa. marka haddaba aan kala qaadno maxay tahay ceeb. What is shame? ceeb waxa ah tuuga inuu waxado ood qarisid waa ceeb. mardadabaanka beenaalaha inuu been intuu sheegayo aad qarisid waa ceeb. maskiinka oo lagu tunto xaqiisa waa inaad taas ceeb u aragno, waa wax xun. adoo ilaahay nimco uu geesahaaga dhigay inaad qariso oo tiraahid maya waxba ma haysto ood khayrka dhan istusi weyso, taasi waa ceeb. xumaanta oo aan dhahno waxan waa xumaan, taasaa ceeb ah. laakiin intaba markaan qarino oon kii wax dilay iyo kii wax dhacay iyo kii mardadabaanka iyo kii khayr beelaha iyo gabadha walaasheed xumaanteeda banaanka dhigta oo dadka dhibaatada u geysata aan qarino, waxaad arkaysaa qof baa xanuunsanaya, wuu jiran yahay, jiradii baa waxaa la leeyahay qariya, war hana sheeg, war nalala yaabaya, ceeb weeye, shame, reerka ha ceebeynin. jiradii waa qarsanay. kii la kufsaday iyo gabadhii la faraxumeeyey, wiilkii la faraxumeeyey waan qarsanay, waa ceeb baan dhahnay. waaridkii dhibaatada loo geystay waan qarinay, waa ceeb baan dhahnay. wiilkaagii wax soo xadoo tuuga ahaa hoostaa gashatay, waa ceeb baan dhahnay oo reerka ha ceebeen baan dhahnay. gabadhaadii dadka rafaadisay waa ceeb baan dhahnay, hoostaan gashanay, waan qarsanay. war ceebtu maxay tahay? war intaasoo dhib ah markaan qarsanno maxaan sugaynaa? war daroogada kay baabi'isay oo daroogada dilatay baan waxaan dhahnay waa ceeb haddii nala maqlay, ha sheeginina intaan caawis u raadin lahayn. war wallaahi dad saa u nahay waxaad moodaa inay iskaga kaaya qasmeen waxa saxda ah iyo waxa qaladka ah, waxa ceebta ah iyo waxa ficnaanta ah. war aniga haddii walaalkay uu tuug yahay waxaan dhahayaa waa tuug ee iska jira. hadday walaashay dadka rafaadiso waxaan oranayaa war waa khayr beeshe iska jira. ummadda ilaahay baan uga digayaa just inay walaalahay yihiin uma difaaci karo oo ma iloobi karo godkii yaraa ee iilkii aakhira la dhigayay ee marada cad aan ku dhex jiray, ma iloobi karo. war walaalka dhinaca kuuma galayo, walaasha dhinaca kuuma galayso. waxaa taas tusaale oo hakeyski hadda ugu dambeeyay inan yar oo dhibaataysan oo systemka ku jirta oo hay-adii ay soo dhigtay banaanka ayaa waxaa la leeyahay ha ka hadlin, reerkiiba ceeb looga baqayaa. war ilaahay ka yaaba, war agencygii baa reerkii banaanka arrintan soo dhigtay, maxaa la qarinayaa? war walaalayaalow ilaah baa idinku dhaarshee, agencygii baa dibadda soo dhigtay oo tiri gabadha caawis baan u raadinaynaa. fiidiyooyo waxaa la soo dhigayaa la leeyahay gabadhii reerkoodii bay la joogtaa, ubaxay ha ka hadlin. war bilaa calayg ilaahayga idin uuntay ka baqa. war qabrigii yaraabaad gelaysiin. war mara cad baa lagugu duubayaa. war wallaahi walaalka inuu ku raacin, walaashaa ku raacin, hooyadaa ku raacin, aabaha ku raacin. war waxa fiican oo khayrka ah aan banaanka soo dhigno, waxa xunna aan dadka uga digno. war walaalka hadduu dhibaato samaynayo binu aadanka uga dig.
reerka waa ceeboobayaan maxay tahay war ay raada ina ceebta reerka banaanka soo dhigo si aan caawis ugu helo walaalkayga dhibaataysan midka daroogada leh si aan ugu raadiyo meel looga dhaqo war taas ceeb ma aha waxaa la yiraahdaa caawis u doon caawis ayaad u raadisay you taking care of your family you're not shaming anybody because you're getting help for them war tuuga dowladda u dhiibno ilaahay ka baqa haddii caawis yeelayn oo walaalka ama cunugaagu uusan yeelaynin inaad caawisid ugaga dig gabadha walaasha ayuusan xadin warkan wax dilay ha dhoofinina u dhiiba dowladda ilaahay wuxuu yiri qofka yadkiisa waxa uu ku sameeyo hal laga gooyo dowladda haga gooyso war qofta dumarka ah ee meel walba ceebta dadka la taaganaan iska qabano war waxa shame ah oo ceeb ah inaan fiicnaanta iyo wanaagga aan ka leexano oo qurunka iyo wax walba oo khayrka noogu jirin aan qarsano taasaa shame ah ee ma aha ilmahaaga xanuunsanad caawis u raadisid war cudurkii waxaan ka dhignay ceeb war caafimaadkii waxaan ka dhignay ceeb war wixii xun iyo wixii sanba iskaga keen qarsamay iskaga keen darsamay war ilaahay ka baqa shaming iyo xumaantii fiicnaanta waxay kala tahay horta kala barta bilaa calayk arrintan aad marar badan baan ka hadli doonaa war xanuunka ilaah baa keena cudurka ilaaha keena caafimaadka ilaaha keena geerida ilaaha keena nolosha ilaaha ku siiya familkaaga dhinac kuma galayo aniga haddii maanta ay dhib igu dhacdo ilmahayga qof oo familka waa inuu usoo istaago hadday waayaan qaraabo qansax inuu usoo istaago hadday waayaan Soomaali Maxamed waa inay usoo istaagto inta dad kale ay ku af ahayn ku dhaqan ahayn ay qaadan lahaayeen ay raada ina Soomaali Maxamed ay iraahdo walaalayaalow ilaahay ha laga baqo oo waa ceeboobayna darteed yaanan ilmaheena dubadda ugu ridin waa ceeboobayna darteed yaanan wiilasheena ayagoo xabado isku haysta qarinin waan ceeboobayna darteed yaanan dhibaato isu gelinin waan ceeboobayna darteed yaanan diinta ilaahay ugaga bixin war islaamnimadiina ma dhar iyo salaad beenbeen oo la tukadaa maxay tahay islaamnimadeenu ma waxay ku soo shubatay mara aan xiranno iyo salaad aan tukanno oo nan ogeynba waxaan tukanay iyo sababtaan u tukanay war diintu waa inay ka reebto wixii xumaan ah war ilaah baa idinku dhaarshay diinta islaamka oo aad sheeganaysiin ka run sheega oo ceebta waxa aad u taqaaniin waa diin ka fogaansho ee sida isku dhaamo walaalayaalow dardaarankaas waa nafsadayda marka hore ka bacdina idinka وانا لعيبينيا فاميلكا عيبوبيا كفكر وحاسمينيسين والسؤال اسويدية انت هذا القرن فاميلكا ان دفاع او قشن اي قرن اي عيب اي بلاي ان كو دفاعه سؤال اديقو اسويدي collective thinking كان جوجيا individual كستها افكرو كليجيس مسكحة هذا كليجا كفكر الهي ادوكو حسابيا هذا كليجا قبر قليا نفسد هذا كليا كفكرو سؤال اسويدي